وبعدين سلام أصحابتي المانتو حايدين ولا قيبتي لوادي تحنينا قيبتا روحي نوجكتي مركي ونام دوسان تليفونكي soo dhacay intaas kadib naam duusaan waalidiintiis waxay gudaha ka maqlayaan shanqar weyn soo galayaan waxay arkayaan naam duusaan iyo asxaabtiisa oo ugu jiifaan dhankan waxaan aragnaa Mustara wuxuu soo qaadanaya gaarigiisa aan soo laaban naam duusaan iyo asxaabtiisa waxayna saarnayeen maxkamadda naam duusaan waalidiintiisa intaas kadib naam duusaan aabiis wuxuu naam duusaan iyo asxaabtiisa ku dhahayaa shirkaddan Samsung Tech hal sano ayay taagan tahay waxaan u baahanahay inaan ogaado faa'iidooyinkii kasoo xirooday maadaama aan ahay mulkiilaha Samsung Tech dhankan waxaan aragnaa Mustara oo soo socda xaafadda uu degan yahay naam duusaan wuxuuna waxay daalnay ayeeyadeeda waxaan ku dhahay wadada aan ku jira waxaan u socdaa xaafadda uu degan yahay naam duusaan iyadan waxay reesay sidoo kale asagana wuxuu dhahay waxaan ku helay GPS-ta dhanka laga soo laaban naam duusaan iyo asxaabtiisa waxaan soo saarnay qalab ku sheegaya wax kasta oo aad ku aadiso magaciisa intaas kadib waxay soo bixinayaan qalabkii waxaan ku aadinayay wax kasta uu ka run sheegaya intaas kadib waxaa loo dhiibay naam duusaan hooyadiis waxaan ku aadinaysaa wajiga ninkeeda wuxuu soo sheegaya masquul naam duusaan abiis uu xanaaqay wuxuu soo bursanaya wiilkiisa waxay ku dul wareegayaan gaariga Mustara naam duusaan abiis wuxuu dhahay ma waxaad soo saaraysaa qalab wajiga ay ku tilmaamayo masquul inta kadib naam duusaan waa la qabanay habeenkaas waxaan aragnaa Mustara iyo daalni ayeeyadeeda oo soo fadhiya Mustara wuxuu daalni ayeeyadeeda ku dhahay wuxuu rabaa inuu ganacsado weyn noqdo laakiin rajo kama muuqato dhankan waxaan aragnaa naam duusaan iyo asxaabtiisa oo nolosha soo eegtay naam duusaan wuxuu go'aansanay inuu ICA gado iyo banooni uu hadda ka hor u saxiixay in lagu magacaabo Park Jin-sung dhankan Mustara wuxuu ayeeyadeeda ku dhahayaa ma laga yaabo inay daalni yeesho naam duusaan dhankan waxaan aragnaa daalni oo baska saaran weyn kasoo degaysaa waxay arkaysaa page naam duusaan waxayna ogaanaysaa inuu iibinayo banooni waxay u diraysaa emailkeeda waxayna dhahaysaa sideen ku ogaan karaa inuu ninkaas ku saxiixay waxaan u baahanahay haddii asagan wuxuu soo diraysaa yaraantiisa iyadoo markii ay aragtay naam duusaanka ay raadinaysay inuu yahay aad ay u farxaysaa waxay soo wacaysaa ayeeyadeeda waxayna ku dhahaysaa ayay waxaan helay naam duusaan hadda ayaan la kulmi rabaa kadib ayeeyada markii ay taleefon ka baxday waxay u sheegaysaa Mustaraan waxayna ku dhahaysaa daalni naam duusaan way heshay Mustaraan wuu naxayaa dhankan waxaan aragnaa naam duusaan iyo asxaabtiisa naam duusaan waxaa u soo hadlaysa daalni waxayna soo qoraysaa waan ku xiisay shimaan wada kulmi doonaa asagan wuu fahmeynayay waxay ka wada dhankan waxaan aragnaa daalni waxayna qoraysay naam duusaan waxay ku dhahaysaa jaak buluug ayaan wataa ma soo dhowda asagan wuxuu ku dhahayaa after 30 sekin waan kula joogaa waxa kor dheer ka arkay naam duusaan saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay saaxiib anaga waa kaasii tegaynaa adigu ogeey kadibna way ka tegayaan asagoo dhankeeda soo socda waxa gees uu baxay Mustaraan kadib markii uu naam duusaan arkay inuu yahay maamulaha shirkadda Mataama uu ku farxay wuxuu ku dhahay hal mar waan ku soo laabanaya gabadhaas ayaan wax ka soo gadanaya Mustaraan wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan 5 daqiiqo kula hadlo dib ay soo raacayaan Mustaraan wuxuu naam duusaan tusinayaa warqadii ay intaas oo san isku qorayaan isaga iyo daalni ayadoo u malaynaysa naam duusaan Mustaraan wuxuu naam duusaan ku dhahay isku day inaad warqadaas akhrisid kadib naam duusaan wuxuu fariin soo diray daalni wuxuu ku dhahay waan ku xumaa shaqo muhiim ah ay soo baxday daalni waxay maanta shaqadeeda waxaan u maanay asxaabteeda waxaan ku dhahay waxa ku wuxuu maamulaha uu tagaysaa waxaan ku dhaysaa ma waxaad rabtaa inaad shaqaale buuxi ka dhigtid wuxuu ku dhahay macquul ma waxa loo baahan yahay inaad dadaalkaaga muujisid nasiib ayaa leedahay maadaama heshiiska la cusboonaysiinayo laasan kadib ayaa lagu shaqaaleysiinaya kadibna banaanka ay soo baxaysaa iyadoo xanaaqsan wayna ka jabaysaa kadibna waxa fariin soo diraysa walaasheeda waxayna ku dhahaysaa bari xaflad miimaanaysto hooyn way imaanaysaa sideeda ayay ku xiistay dhankan waxaan naam duusaan iyo asxaabtiisa waxay naqinayaan waraaqadii dhankan naam duusaan iyo Mustaraan isla fadhiya naam duusaan wuxuu Mustaraan ku dhahayaa waxaan rabaa inaad shirkadda noo maalgelisid Mustaraan wuxuu ku dhahay shirkadii ma gaarin heer la maalgeliyo Mustaraan wuxuu naam duusaan ku dhahay waxaan rabaa inaan hal maalin ii matasho inaad daalni gacliyeeda tahay intaad doontiin lacag sheegto waan idin siinayaa kadib naam duusaan wuxuu dhahayaa waxaan rabaa inaan sandbox ka mid noqono Mustaraan wuxuu dhahayaa midaas ma samayn karo igaraha naqdi kadibna wuu ka tagayaa wuxuu imaanayaa gurigiisa isagoo murugaysan dhankan waxaan arkayaa daalni oo basaar waxayna imaanaysaa gurigooda markii qolkeeda soo gasho waxay arkaysaa hadiyad u saaran sariirteeda way fiirinaysaa waxaana ku arkaysaa dhar iyo kabo cusub inay ayeeyadeeda usoo kadhaweynuma salaabta ayayna gelinaysaa subax markii gaar daalni ayeeyadeeda waxay daalni ku dhahaysaa daalni naam duusaan waa weysoo maaha daalni waxay ku dhahaysaa ayay dhar qurux badan haddii soo gaday ayaan xirinayaa waan iska caadi daalni ayeeyadeeda waxay dhahaysaa daalni waxay dulqaad wax kasta way hagaagi doonaan daalni waxay isku diyaarinaysaa xaflad waxayna arkaysaa bokoska walaasheeda ay siinaysay kadib daalni waxay imaanaysaa xaflad waxayna ku arkaysaa hooyadeed iyo walaasheeda wayna iskeen la tiraysaa xafladda ayayna soo gelaysaa dhankan waxaa imaanaya Mustaraan iyo naam duusaan markii xaflad soo gal wuxuu soo dhaqaaqay xagga ayo dhanka daalni wuxuu ku dhahay waqti dheer miyay sugaysay in xiraysaa haa weli waqti aad u dheer waan ku xiisay dhanka waxaan arkaynaa dadka bixinaya abaalmarinta Cody Price oo ay soo dalbadeen naam duusaan iyo asxaabtiisa waxayna dhahayaan waxaa kaalin koowaad gashay shirkadda Samsung Tech waxaan arkaynaa ninkan wuxuuna dhahayaa naam duusaan inaan kula kulmo waan sugi la'ahay waqtigan gadaal ayaan ka ogaan doonaa dhankan waxaan arkaynaa daalni waxayna laabta gelinaysaa naam duusaan waxay ku dhahaysaa waxaa laga rabaa inaad romantic iska dhigtid waxaa soo socda hooyadeeda iyo walaasheeda garabka ay ka qabsanaysaa hooyadeeda waxay ku dhahaysaa aad ayay u qurux
badnaatay kadib hooyada iyo walaasheed waxay baraysaa naamtuusan injay waxay naamtuusan ku dhahaysaa daalni waxay ii sheegtay adiga iyo iyaduna kambani cusub abuurateen naamtuusan wuxuu dhahay haa xitaa waxaan ku dhahay kambani maamulaha lagaga dhigay ayadna way diidantahay idinkoo qanciyay kadibna waxaa imaanaya misraha wayna israacayaan daalni hooyadeedana waxay dhahaysaa wiilkan wuxuu u egyahay wiil wanaagsan injayna waxay ku dhahaysaa intaan Ameerika aadin ka hor haddii aad rabtiin waa idin caawin karaa daalni waxay dhahaysaa caawimaadkaagama baahno dib banaanka ay usoo baxayaan misraha iyo naamtuusan way israacayaan misraha wuxuu naamtuusan ku dhahay gabadhaas toos gurigeeda u geey halkan waxaa la daalni hooyadeeda oo laabta gelinaysa daalni waxayna ku dhahaysaa gabadheeda waa kooxis markasta niyadda ayaan ku yahan jiray daalnin waxay dhahaysaa go-aankii aa qaatay waa ku saxanaya wax dhibaatana igama muuqato kadib waan baxaya ay dhahaysaa markii ay soo baxday waxaa u wacaysa hooyadeeda waxayna ku dhahaysaa gabadheeda garabkaaga ayaan taagna markastoo aad garabigaaga soo baahatana waan ku caawin karaa kadib daalni way kasoo tegaysaa markii ay gaariga soo gashan si xun ayay u oonaysaa waxaa kusoo laawna hadaladii hooyadeeda naamtuusan tiish ayuu siinaya wuxuuna ku dhahayaa ooyinta badan iska dhaaf kuma qurxoonaya dhankan waxaan arkayna injay adeerkeeda iyo wiilkiisa injay hooyadeeda markii ay aragtay waxay dhahaysaa waan baxayaa injayna waxay dhahaysaa hal mar xitaa aabma salaamsiiyeen waxay dhahaysaa niida aan ku salaamahay injay hooyadeeda waxay injay ku dhahaysaa wiilka adeerka uu dhalay waxaa inta loo keenay si uu shaqada ka fahmo markii uu fahmay uu shirkada kaala wareego kadib injay waxay u tagaysaa adeerkeeda wayna salaamaysaa dhankan waxaan aragnaa naamtuusan iyo daalni kadibna wuu arkayaa daalni waxay naamtuusan ku dhahaysaa ma weydiinaysa miya waxaan loo oynayay isagana wuxuu dhahayaa waxaan iska dhigaya suldaanka aamusnaanta badan kadibna way ku qaslaysaa sarhaan wuxuu qoraal qoraya naamtuusan wuxuuna ku dhahayaa gabadha gurigeeda geey kadib naamtuusan wuxuu dhahayaa gurigaaga ayaan ku geenaya iyadana waxay dhahaysaa guriga inta ayuu ka dhow yahay aniga waa sii dhugan karaa adiga iska sii bax kadibna wuu kasoo tegayaa andin wuu usoo laabanaya wuxuuna siinaya kaarkiisa ganacsiga kadib asiyo misraan guriga ayay imaanayaan misraan wuxuu naamtuusan ku dhahayaa waxaan maanta oo dhan sameynaysa jilin ayay ahaayeen dhankan gabadhaas mula hadli karti kadibna daalni ayaa usoo hadlaysa waxayna dhahaysaa casho ma aadi karnaa isagana ha ayuu dhahayaa daalni markii ay firintiisa aragtay aad ayay u farxaysaa kadibna waxaa guriga imaanaysaa iyadeeda wayna u imaanaysaa waxaana ku dhahaysaa ayay maanta waxaa la kulmay naamtuusan aad ayuu noo qurux badnaa subaxda misraan wuxuu imaanayaa daalni iyadeeda naamtuusan ayuu ku jafayaa dhan kale daalni waxay furaysaa sanduuqii walaasheeda waxaana kasoo baxay dhawaaq muusi dhowaad u macaan waxaan arkaynaa injay waxayna imaanaysaa xafiiskeeda shaqaaleeda mid kamid ku dhahaysaa falaadkeyga ii fiiri iyadan waxay dhahaysaa caaga fiidka shil ayaa leedahay injayna waxay dhahaysaa safarkeyga wax yar kadib waay kadibna waxaa gadaasheeda kasoo hadlaya adeerkeeda way isla fariisanayaan wuxuuna ku dhahayaa gabadheeda shaqo badan ayaa qabtay qaybta meerka marku ay kaatibiyeen waxay soo xasuusinaysaa hadalkii hooyadeeda waxaan arkaynaa daalni iyo asxaabteeda oo maqaaxi joogaan saaxiibada daalni waxay daalni ku dhahaysaa heshiiska ama cusboonaysiina waa daalnin uma jawaabayso kadib daalni markii ay xafiiskeeda imaad waxay bilaabaysaa inay alaabteeda qaadato si ay shaqada ugu fariisto asxaabteeda ay salaameynta saaxiibadeeda waxay soo siinaysaa geed ay ka heshay dhankan misraan soo xafiiskiisa jooga waxa uu la soo hadlaya naamtuusan wuxuuna ku dhahayaa waxay la soo hadashay daalni waxayna igu dhahday waxaan imaanaya xafiiskaaga kadib misraan wuu soo baxaya wuxuuna imaanaya gurigiisa naamtuusan iyo asxaabtiisa waxay keenayaan boorka shirkadooda misraan wuxuu naamtuusan iyo asxaabtiisu dhiibaya suud kadibna waxaa imaanaysa daalni gudaha ayay soo galaysaa waxayna la dhacaysaa guriga quruxdiisa waxayna baranaysaa naamtuusan asxaabtiisa kadib waxaa imaanaya naamtuusan waxayna siinaysaa wixii ay wadatay waxay ku dhahaysaa shaqadeeda baan kasoo tegay waxaan rabaa sidaa horumar u gaartay oo kale inaan horumar u gaaro marka waxaan arkaynaa injay oo rabta inay u laabato Ameerika waxaan arkaysa hooyadeeda waxay ku dhahaysaa aniga ay kusii dhaweyna gaariga soo rax kadibna ay soo raacaysaa waxayna hooyadeeda ku dhahaysaa xafiiska ayaan ku geynaya aabbaha tus inuusan inay yar waxba kaa qaadan karin kadibna ay soo baxayaan marka waxaan arkaynaa adeerka wiilkiisa wuxuuna madaxda shirkad ku dhahayaa injay waxay aaday Ameerika qaybtan aniga ayay u wareejisay waxay rabtaa qaybta USA inay horumariso kadib waxay albaabka soo galaysa injay adeerkeeda wuxuu ku dhahay injay ilaa hadda ma biximiya injayna waxay dhahaysaa waxaan ka maqnaa farxadda ayaa baashalkan halkan ka dhacayso waxay ku dhahaysaa aniga Ameerika uma socdo dhaqanka aad dhashay qaybta Ameerika u dhiib wayna ka tegaysaa injay waxay dhahaysaa kambanigan iyo lacagtan oo dhan faraha ayaan ka qaaday kadib ayada oonaysa ay soo baxaysaa timaha ayay soo yareysnaysaa waxayna imaanaysaa shirkad Sandbox dhan kaleetan waxaan arkaynaa daalni oo imaanaysa shirkad Sandbox usoo laabanaa naamtuusan iyo asxaabtiisa waxayna aruusinayaan alaabtooda daalni wuxuu siinaya lacagtii ugu badan qaaday wuxuuna dhahaa jidinkan halkan aan ku joojino daalni ayadeeda waxay baansa inay daalni wax kas u sheegto naamtuusan wuxuu dhahayaa waxaa ila haboonin daalni waxaan oo dhan loo sheegin haddii aan shirkad Sandbox ka mid noqon waxaan oo dhan waan xalin karaa waxaa loo soo diraya masiid waxaa loo sheegaya in la aqbalay tartanka kooda price way ku farxayaan halkan waxaan arkaynaa daalni oo qoraysa waraaqad soo kale waxaa meesha joogay injay iyo naamtuusan iyagana waxay wax ku qorayeen waraaqada ay daalni wax ku qoraysay saraan wuxuu imaanaya meeshii ay joogeen naamtuusan iyo daalni intaa kadib waxaa imaanaysa Maryam waxayna ku dhahaysaa maxaad halkan ka samaysaa isagoo wuxuu ku dhahayaa waxaan u imaaday inaan kormeer shirkad ka soo qayb galaysa tartankan halkan waxaan arkaynaa naamtuusan iyo asxaabtiisa oo rabaa inay xayeysiin samaystaan shirkadooda kadibna waxaa laga duubayaa muuqaal halkan waxaan arkaynaa misraan oo u imaanaya daalni ayadeeda wuxuu dhahayaa waxaan rabaa casho iyadana waxay dhahaysaa ugu horreyn aan wada hadalno dhanka laga soo laaban naamtuusan iyo asxaabtiisa naamtuusan saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa muuqaalkeen waa inuu dunida oo dhan gaara si aan u helno maalgelin fiican dhanka laga soo laaban daalni ayadeeda iyo misraan wuxuu daalni ayadeeda ku dhahayaa inoo
fiican daalni waxba aan u sheegin daalni ayay waxay masaraan ku dhaysaa waxaa nolol sameynaysaa ku dhacaya waariyadeeda inta saaxiibka naamtuusan wuxuu daamtuusan weydiinayay inuu ka helay daalni kan kale asoolaan daalni ayadeedii iyo masarhaan daalni ayadeedii waxay masaraan ku dhaysaa adig daalni ma ka heshay hadana halkaas ayna waqti ku mahadsan daawashada waa inoo xalqad xigta bye bye